Wetangula ayaa sheegay inay dowladda Soomaaliya iyo Kenya ay hore u kala siixdeen heshiis kaasi oo ku salaysan dhanka xuduudda badda. Heshiiskaasi ayuu sheegay in labada dowladood ay kala siixdeen xilligii dowladdii madaxweyne Mwai Kibaki ay hogaaminaysay dalka Kenya. waana shakhsiga dowladda Kenya heshiiskaasi u saxiixay. mar uu la hadlayay saaka warbaahinta dalkiisa wuxuu yiri ka wasiir ahaan waxaan wada xaajoodka la galay dowladdii Soomaaliya xilligaasi waxaana wada saxiixnay heshiis lagu calaameynayay xuduud badeedka labada dal. nuqulka heshiiskaasi iyo qariidada badda ee isla gartay waxaan u gudbinay Midowga Afrika iyo qaramada midoobay. weli jawaab kama aysan soo bixin siyaasiyiintii ku lug lahaa heshiiskan. hadalkani maanta ka soo yeeray wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalka Kenya. xilligaasi waxaa dalka madaxweyne ka ahaa Shariif Sheekh Axmed, waxaa ra'iisul wasaare ka ahaa Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake, iyadoo wasiirkii qorsheynta iyo xiriirka caalamiga uu ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur. waana shakhsiga heshiiskani qalinka ku duugay, iyadoo mid walba oo ka mid ah siyaasiyiintanna ay iska dafireen inay qayb ka hayeen heshiiskaasi. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo isagu ahaa mas'uulkii ugu sarreeyay ee dalka oo ay Soomaali u igmatay ilaalinta hantida ee qaranimada Soomaaliyeed ayaa marar badan sheegay inuusan haba yaraatee waxba ka ogeyn heshiiskaasi. ra'iisul wasaare idin jawaabay, wasiirka idin jawaabay, aniga dhabo arkinba warqad lagu saxiixana ma arkin, meel lagu saxiixana ma ogi, waxna kama ogi. hadday fiican tahay dadkaas iska leh, hadday xumaataan ayaga iska leh. sidoo kale kulan London loogu qabtay wafdi uu hogaaminayay ra'iisul wasaarihii waqtigaasi Umar Cabdirashiid ayuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu ku andacooday in wixii faahfaahin oo ku saabsan heshiiskaasi wax laga weydiiyay Umar Cabdirashiid oo isagu wakiil uga ahaa. wasiirka sheegay xaqa u leeyihiin dadka Soomaaliyeed inay ka daqaan wax allaale iyo wixii dhibaato ku ah qarannimadooda, hantidooda. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay runtii sida rad ficliga ama reactionka laga bixiyay inay dadku ilaashadaan dhulkooda. ma ku dheeraa doono, aniga wasiir baan ahay, golo wasiiraan ka tirsanahay. prime ministerkii in hor fadhiyo Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke amarkiisaan ku saxiixay aniga heshiiska. marka cawada asaga la hortaagan heshiiskaas wixii ku saabsan iyo waxa ka qabtiin waxaan rajaynayaa ra'iisul wasaaraha asaga ka jawaabi doona. xilligaasi waxaa Umar Cabdirashiid lagu tuhumay inuu xiriir wanaagsan la lahaa dowladda Kenya, balse wuxuu magnadka ilaa hadda ku dhagan yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isagu ahaa qofkii saxiix heshiiskaasi. haddaba dhibaatadii arrinkaasi ka dhalatay ayaa ah mid ilaa hadda taagan oo dowladda Kenya siisay fursad dahabi ah oo ay dood ku galiso badda Soomaaliya.